sideed sababood oo lagu helo barakada. Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa sideed sababood oo lagu helo barakada. Kelmadaas barakadana in badan ayaynu maqalnay. Barakooyinkan waxaan ugu baahanay xagga carruurta iyo xagga waalidka iyo xagga maalka iyo cimrigaba. barakadu sideedaba way noocyo badan tahay. Sidaas darteed sideedan asbaabood ayaa laga dhaxeelaa barakada. Halkaas ayaan ka raadin doonaa barakada haddii Alle ka dhigo. Haddaba bilowno sideedaas asbaabood. lambarko waa kitaabka Quraanka oo la akhriyo. الله سبحانه وتعالى أي قرآن كيس كلها وهذا كتاب أنزلناه مبارك كأنه كتابك أين سودة شني سيدو قرآن واو بركيسين يهي سيدا استرتد أولا وين بركة كرهنا قرآن كأنه كريم كأه وين القرآن وقت سيسا وتصيدو قرآن القرآن كاس أذكر دساء مركلي أي الله سبحانه وتعالى قرآن كيس يقول لي يهي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب محمد waxaan ku soo dejinay quraan barakeysan saynu noloshinu noqoto mid miisaaman quraanka adarkasan waa mid alla galiyay barako sidoo kale quraanka lagu akhriyo guriga waxa timaada malaa'igta ayaa soo xadirta shaytaankuna waa ka cararaa sidaas darteed suu gurigeena noqdo mid barakeysan oo malaa'igtuna ay timaado aan ku akhrino quraankeena kariimka ah lambar 2 waa bisinka yaani bismillaahir rahmaanir rahiim marka guriga galesid iyo marka guriga ka baxaysid iyo marka xunaysid iyo marka suuliga galesid ba iyo marka seexanaysid iyo marka dharka dhiganaysid shay kasto aad qabanayso waa inaad ku bilowdaa bisinka Alle waana wax fudud oo bismillaah qurata ayaad oranaysaa nabigeenuna naxariisna nabadgelyo korkiisa wax tuu yiri marka guriga galeysaan iyo marka xunaysaanba bisinka ku bilowba kadib maxaa laga helayaa lambarku marka guriga ku gashid bisinka Alle shaytaanka ayaa oranaya halka raaxay ma taale inaga ahrasiya inoo yacsiya mid aan bisinka ku galin gurigiisa sidoo kale marka bisinka yiraahdo cuntadana shaytaanku uu kula cunayo laakiin dad bisinka ku bilowdid shaytaanku kula cunayo halkaas ay ku dhimanayaan cunto la'aan kadib marka intaas samaysid waxa lagu barakeenayaa guriga waxa lagu barakeenayaa xaaska sidoo kale carruurta ayaa lagu barakeenayaa laakiin bisinkaas dad ka yiraahdo wax kaste shaytaanka ayaa naga faa'iideysanaya adiga iyo xaaskaaga ayuu khilaaf lagu dhaxburaya sidoo kale adiga carruurtaada ayuu iskiin diraya dhibaatooyinka ayaa ku badanay guriga marka bisinka afkaaga yaanu ka dhamaan lambar 3 waa sadaqada inta soo jeer ayaad maqasheen culimada oo leh sadaqada bixiya laakiin faa'iidada ku jirta iyo waxaan ka faa'iidano waa ka weyn yahay sidaan u maleynayno sadaqadan wax ka mid ah waxyaabo barakada laga helo xitaa naftaada ayaa ku digaysa wadad ceeri iyo caro iyo xanaaq ku dareemisay marka sadaqa bixiso waxa soo dhanba way ka degayaan saastartan marka xanaaqdo ama nolosha ku xumato haseexan ee sadaqa bixi oo xaq Alle aade wuxuu nabigeenu yiri naxariisna nabadgelyo korkiisa haatee sadaqadu waxay deemaysaa caalada rabbiga sadaqadu waana ku doodaysaa maalinka qiyaamee lambarka afraad waa qaraabada oo la xiriiriyo wanaad xiriiraysaa ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo jaarkaagaba midaas ayaana mid ugu wanaagsan akhlaaqda haddaba hadaad intaas oo dhan samayso maxaad ka helaysaa ilaahay bilaadan banay wax kastan sameynano waxaad ku xisaabtamaysaa maxaad ka helaysaa iyo maxaa ka soo gaadhay adiga faa'iidahaan waxaad ka helaysaa arsaaqada ayuu Alle ku waasicin doonaa oo ku balaadhin doonaa sida inagu baan jecelnahay in markasta Ilaahay arsaaqada inoo balaadhiyo Ilaahay cimriga waa ku dheereen doonaa faa'iido kale oo badan oo kale lagu soo koobi karina oo way leedahay lambarka salaad wanaad ka lahada subaxii oo xil horaad ka baxda guriga waxa doontid u dhaqaaqee kalaadaasi waa barako wadada shaqo kala haysid Allah ayaa ku barakeen hadad wax barasho kala haysidna Allah ayaa ku bareen hadad hawlo kale oo acmaaliyana u kala haysidna Allah ayaa ku barakeen dhamaantoodba xitaa dad wax kala hadaan haysan iska jimicso sababta nabiga jaari ummadeed wax loo barakeeyay kala hada lambarka 6 ayaa isna ah salaada oo la ogo waqtigeeda lagu tukado marka hore salaadu waa tiirka ugu weyn islaamka mana aha mid laga bariyo laakiin waa inaad waqtigeeda tukataa reerkaaguna waa inaad tukataan carruurtaaduna waa inaad barta sida loo tukado salaada oo xilligeedana loo oofiyo sidaan badankeenu sameeyno waxaan dhahnaa salaad cisho maaha mid tegaysa ee waxa joogaysa ilaa caawa oo dhan ka baxdiga waxaas wixii tagay wixii joogayba waxba kama ganadiga ee salaada waqtigeeda tuko as-salaatu ala waqtiha ayaa leeyahay oo salaadu waxa ku fiican tahay in la tukado waqtigeeda wala jimcida lagu tukado dardarankii ugu dambeeyay ee nabigu ayaa ahaa salaada hala ilaaliyo lambarka 7 ee isaguna ah tala saarashada rabbiga taladu waa inaad u dhibataa rabbigaaga kadib adiguna la imo sababta dadaal wax darabto kadib alla wadiiso oo tala saaro rabbiga oo marka wax yar u baato xagga bilaadanka u cararnay ee xagga rabbiga u soo carar sababta ilaahay albaabadiisu manaba ma xidhmaan ee bilaadanka albaabadiisa ayaa xidhmaa baryada badan iyo baahida badanba bilaadanku ku nacayeen laakiin labadaasba ilaahay ayaa kugu jeclaanaya
mid ugu dambaysa oo lambar 8 ahna waa istighfaarta qofkii badiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar inta kale istighfaarta kamid ahayba qof intaas sameeyo oo afkiisaan ka dhigan barnaba waxa samad uga imanaya barakaad badan qofkii intaas sameeyana oo marnaba afkiisa ku dhigan istighfaartana wuxuu helayaa oo samad uga imanaya barakaad weyn haday noqoto carruur badan iyo haday noqoto maal badan Allah ayaa go'sinaya wax kasto oo ku wanaagsan iyo wax kasto adoon sidba sidoo kale ciriiriga badan iyo carada badan ba iyo wax dareemisto oo dhanba Allah subhanahu wa ta'ala ayaa qalbiga ku sifeynaya oo ka dhigay mid degan adeeg kaliya waxaad sameystaa istighfaartaasun ku dhagnow